xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada gobolka Togdheer ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunyada kala duwan. Waxay sidoo kale saameynta la mid ah ku yeelatay xayawaanka duurjoogta ah ee ku dhaqan deegaanada gobolka Togdheer. Mahad Faarax Cabdilaahi, gudoomiyaha duurjoogta, ayaa isaguna booyad biyo gaarsiiyay doofaarada ku dhaqan deegaanka Ceeg ee ka tirsan gobolka Daadmadheedh, halkaas oo uu ku waraabiyay koox doofaar ah oo ku dhaqan deegaankaasi. Gudoomiye Mahad Faarax ayaa ka warbixiyay biyo la'aanta haysata xayawaankani duurjoogta iyo sida looga baahan yahay in loo gurmado. Anigoo Mahad Faarax, gudoomiyaha ilaalinta xayawaanka duurjoogta ee Geeska Afrika, waxaan ku suganahay saaka magaalada Ceeg. Halkan abaar baan ayaa ka jirta. waxaanu keenay booyad biyo ayaan keenay. waxaan ugu talagalay booyadaha biyo inay cabaan xayawaanka halka ku sugan doofaarada ah. waxa weeye xayawaanka deegaankan oo dhan bay ka buuxaan. magaalada ayay weerar ku hayeen muddooyinka ugu dambeeyay. sida awgeed abaar ayaa ku dhacday. marka biyo waa ku ay halka hortiina ka cabaya booyad biyo baan u keenay. booyada waxa laga soo qaaday dad muxsiniina. waana markii saddexaadan bahalan biyo soo gaarsiiyo. 2017 biyo aan u keenay. 2021 biyo aan u keenay. ilaa saaka waan waraabinay. ilaa saaka ilaahay baa iga sareeyay. ilaa saaka waan waraabinay. ilaa shalay waan waraabinay. waxa weeye marka waa kuwa cabaya dhargay iyaga ducaynaya. qof kasta oo xanuun ka cabanaya iyo qof kasta oo baahi ka cabanaya iyo qof kasta oo badlaan ka cabanaya, xayawaankaasi iyaga u ducaynaya. ilaahay waxaan uga baryayaa dadkii xayawaanka biyaha ku soo caawiyay, ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ugu daro. dadkii xayawaankan hore soo caawiyay waxa ku sugan magaalooyinka Berbera iyo Burca ayay ku sugan yihiin. marka waxaana kamid ah Faarax Xarigle. sida awgeed biyaha waa kuwa cabaya. annagu waxba kala maana har biyo waan u gaarsiinay. imakana biyaha waxaan ku wareejinay odayaashii magaalada ayaan ku wareejinay. iyaga naga gudoomay biyihii, iyaguna way waraabinayaan. marka waxaan leeyahay cid kasto xayawaanka caawinayso waxaan leeyahay ku soo hagaajiya lambarka 435230 waa Telesom 43522000. aniguna walaalayaal waxaan idin ballan qaadayaa wax kasta aad soo dhiibtaan xayawaanka waan gaarsiinaya. waxna kala hadhi maayo, voluntary ayaan ku shaqeynaya. qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ku nool deegaankaasi ayaa soo dhaweeyay tallaabadani, ugana mahad celiyay gudoomiyaha iyo dadkii ka qayb qaatay arrintani, iyagoona sheegay in xayawaanka duurjoogta ay ku haraadan yihiin halkani. biyaha qaansiirka lagu waraabinayo dee wuu na soo gaarsiiyey. bahalkaasuna booyad buu noo keenay, ceel buu ugu shubay. markaa bahalkaasi wuu naga tegi waayey. biyana markaanu weynay masaajidkii wuu naga galay. masaajidadii la sameynayay biyihii lagu sameynayay wuu naga dhex galay. bahalkaa waxaanu doonaynaa in dadka soo caawiyey ee naga fardaamiyey markuu cabo wuu naga tegayaa. dee haddii kale wuu soo gelayaa magaaladii. haddana dee waa xawayaan ilaahay abuurtay oo ilaahay uu keenay dhulka. ma layn karayno, mana eryi karayno, nagala tegi maayo. markuu cabo laakiin wuu iska tegayaa. markaa waxa weeye waa beer gubanaya. marka oo cabo dee wuu iska fulaya, wuu iska tegayaa. marka waxa weeye ku midba meel ka dhacaya. ilaahay raxmad baanu ka baryaynaa. dee booyada biyaa u keenay bahalka, ceel baana loogu shubay, waanaanu ka gudoonay. marka wixii dambana dee waxa weeyaan ninka inaa ugu soo hagaajisaan taana waanu ka gudoonay. haddii alla beedankeeda yahay wixii kale xawayaan ee duurjoogaha oo mana dee iyagana waanu ka waraabinaynaa. ninkan la yiraahdo Mahad Faarax ee gudoomiyaha xawayaanka wuxuu keenay magaalada Ceeg booyad biyo buu keenay. sida wada arkaysaan oo kana waxa cabaya bahalkii doofaarkii ama xawayaankii duurjoogta ahaa. biyihii wuu cabaya alxamdulillah. waa taasoo waxa filayaa inaad wada arkaysaan. waxa weeye marka hore horta dee waa u mahad celinayna dadka u keenay, waayo sababtoo ah waa waxa weeye xawayaan aan isagu cid dar yeesha iyo cid waraabisa iyo cid u naxariisanaysa midna aanay jirin. marka ciddii u naxariisatay u keenta way mahadsan tahay. meeshan xawayaan badan, doofaar badan baa ku nool. meeshu waxa weeye dooxa weeye waa gargaro. dooxadaas ku nool yahay oo cabaa. waqtigan imika 2 sanadood roob ma helin dhulka. way maranayaan. ciddii maxay tahay u samafalaysa ama caawinaysa ninkaas odayga ah waa inay ugu soo hagaajiso insha Allah taala. waxa kale u sheegaynaa dadka samafalayaasha ah. magaaladan waxa weeye magaalo aad u ballaaran. dadka joogana waa ooman yihiin, dad iyo xoolaaba. biyihii booyada ayaa lagu shubay ceel gaar ah si loogu waraabiyo doofaaradani, iyadoona mas'uuliyadda hawshaasi loo xil saaray odayaasha deegaankaasi. maaha markii horeysay Mahad Faarax biyo gaarsiiyo ama waraabiyo doofaarada ku nool deegaanada gobolka Togdheer, isagoona hore u gaarsiiyay qaar ka mid ah xayawaanka ku nool deegaanadaasi kala duwan. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, Burco.
qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber